waxa maanta aan mashruuc wax ka taraya iyadoo Soomaaliya ay la halgamayso mar walba fatahaadaha wabiyada abaaraha soo noqnoqonaya oo dhammaantoodba isbeddelka cimilada adduunka iyo saameynta uu ku leeyahay deegaanka aan halkan hay'adda UNDP ku kala saxaxnay mashruuc wax laga qabanayo hadday noqoto beeraleyda iyo xoolo dhaqatadaba inay ka faa'iideystaan oo adkaysiga isbeddelka cimilada adduunka wasaaradda biyaha iyo tamarta lagu dhisayo awoodda ay u leedahay iyo saadaasha hawada ku saabsan isbeddelka cimilada adduunka iyo saameynta uu ku yeelan karo sidoo kale xafiiska deegaanka iyo isbeddelka cimilada adduunka oo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha sidii uu isugu xidhan lahaa shaqada maareynta iyo adkaysiga isbeddelka cimilada adduunka ee saameynta uu leeyahay waxaan uga mahadcelinayaa hay'adda UNDP oo fulinaysa mashruucan iyo GEF oo inaga caawisay UNDP qudheedu waxbay ku dartay waa bilow fiican mashruucani oo wax ka tari doona dhowrka sano ee soo socda in waxna laga barto aqoonna laga faa'iideysto lana sii kordhiyo la ballaariyo awoodda aynu u leenahay inaynu la tacaalno isbeddelka cimilada adduunka iyo saameynaha uu keeno saaka shirkii aan ku lahayn halkan ee SDRF qudhiisa waxaan kaga hadalnay lagana hadlayay inaanaan u baranuun mar walba sugina inay fatahaada dhacaan dabeedna ina barakiciyaan ina barabixiyaan haddana abaara dhacaan wax yar kadib ina barabixiyaan dadkii ay qaxoonti ka sameeyaan deegaankoodii ay ka baxaan oo ay ka qaxaan laakiin aynu ka baranno sideen uga hortagi karnaa u maamuli karnaa u maareyn karnaa masiibooyinka dhacaya biyaha fatahaya masiibooyinka dhacaya ee abaaraha soo noqnoqda waa bilow fiican waa ugu hambalyeynaya hay'adda UNDP iyo khubiirada hay'adda Cabdulqaadir iyo ay ka mid yihiin sidoo kale wasaaradda tamarta iyo biyaha iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha waaxda agaasinka biyaha iyo isbeddelka deegaanka iyo isbeddelka cimilada adduunka guul baan rajaynayaa waa ku mahadsantihiin